mid aniga ii gaar aan ku darsanayo halka u fiirsan Sheekh Axmed Sheelare qadiyo uu xukumay oo aan naqdiyay ma jirto waa 92 qadiyo ka dhacday cadaada ka dhacdaan ka qoray kitaabka sheekha ma aanan reedin qadiyadiisa ma ogi wuxuu xukumay ma ogi laba saxba kama hayo ee waa la nabayo ninkaas ku reediyay markaas sheekhuna dagaal iska qaatay waana shaqo aniga midii gaar ahaan ku darsanaya inay akhwaanku aysan dhibsanna waan danaynaya waxay tamid ee gaarka diinta hal difaac la isku ogay aniga naftayda inaan difaacan raba waxaan arkay oo bakaara lagu gadayo kitaab aniga la igu naqdinay aniga maxamuud maxawira la igu naqdinay waxaan raba kitaabkaas waxa ku qoran khalad dhacay inuu yahay baan raba inaan muujiyo anigu kitaabaan qoray risaalo aan qoray jira warqada aan qoray jira alfaad ku qoreeda la dhibsaday cibaarada ku qoreed markii la dhibsaday kitaabkan sabab u ahaa in dambe laga alifo waxaan rabaa marka inaan muujiyo cibaaradaas markaan qoray kitaabkan waxa lagu dhex sheegay wax shaqo kuma lahayn ninka sheekha oo kitaabka qoray waa saaxiibkay waa niman kitaabo isla akhrisanay waa niman wax badan wada joognay laakiin hadda dantuna kala fogeysay oo isku gobol aan joogin waxa loo geeyay ninka sheekha ninkaana ku naqdiyay aaliyay qadiyadii aad xukuntayna ninkaana ka soo horjeeda kitaabkan uu ka qoraalay waxaan farta ku fiiqaya waa been halka u fiirsan Sheekh Axmed Sheelare qadiyo uu xukumay oo aan naqdiyay ma jirto markuu xukumay ma ogi qadiyada Sheekh Axmed Sheelare iyo culimada kale wuxuu meesha ku qoran dhowr iyo 10 sheekh oo uu leeyahay maxamuud maxamed yaraan nimankan caayay culimada caayay ilaahay asmaadiisa dhab 99 ismu ilaahay leeyahay ku dhaartay raga culimada oo meesha ku qoray markaan warqadahaas qorayay asaga Sheekh Axmed aan ka aqaan Sheekh Abdi Shiqaal ma aqoon Sheekh Maxamed Ali Wacis ma aqoon Sheekh Abdullah Minhaj ma aqoon Sheekh Maxamed Guud ma aqoon Sheekh Abdullah Warsaba ma aqoon Sheekh Nuur Jaraaxa ma aqoon intaan dib aan ka bartay markaan warqadaha qorayay ka bacdi aan bartay kuwa badan oo aan aqoon waa wehliyaan oo meesha lagu hadda aan aqoon haddaba aan aqoonba waxaana meesha lagu qoray intaan culimadu aflagaaday 92 aan warqadahaas qoray qadiyo dhacday 92 oo ka dhacday gobolka Galguduud gaar ahaan degmada Cadaada ka dhacdaan warqadahaas ka qoray waa 92 qadiyo ka dhacday Cadaada ka dhacdaan ka qoray markaan warqadahaas qorayna Sheekh Maxamuud Ali Wacis sheekhyaalkaygu hadda kamid yahay wallahi inaan aqoon Sheekh Abdullah Minhaj sanaga waxa ka dhageysto kamid yahay wallahi inaan aqoon culimada Sheekh Abdi Shiqaal kulligood dib aan ka bartay waxaan aqaanay xilligaas Sheekh Axmed Sheelare ka jira asagana Sheekh Abdi Sharif Abdi Nuur aan kitaabka Jamcul Jaamica waxaan uga wada dhageysanay Marwaas hal qadiyoon isku qabanay oo aan ku dagaalnay oo aan faham qaatay ma jirto waxa sheekha loo geeyay ninkaas ku ridiyay warbana kama hayo anoo wax qadiyada uu sheekhu xukumay ma ogi ciday ku dhacday ma aqaan ciday ka dhacday ma aqaan wuxuu sheekhu ku xukumay ma aqaan markay dhacday ma aqaan sheekhana waxa loo geeyay ninkaas ku naqdiyay anoo wixii aan qoray ka qoomay maayo hadda la diyaaray tuhfaan ka qoray nihaayaan ka qoray muqniyaan ka qoray afar kitaabaan markaan qadiyadan ka hadlayay waxa agtayda taali waa tuhfa iyo nihaaye iyo muqni iyo fathul jawaad afartaas kitaaba agtayda taali afartii kitaabna waa yeeleen waxa ay qoran iyo meeshii waxa ku yaalahayna haday iskhilaafaan ana eedeeda leh maba jirin ba inaan aqaanaba barnaamijkan qadiyo aan ogeyn la ii saarayo ninkaana kula dirirsanay sheekha lama dirirsanay beenta laga day kitaabkaas anigu waxa ku yaala oo sheekha culimadaas aflagaadeeyay leeyahay علماء aanan aqoon waxay xukumeen waxaan ku qoran waxa kamida culimadaas intii kala meel martay Sheekh Maxamuud Ali Wacisna meel maray oo Sheekh Maxamuud Ali Wacis u tacasubay ku qoran warqadahan markaan qorayna Sheekh Maxamuud Ali Wacis ma aqoonba ka bacdi uu sheekhiin noqday markaan warqadahan qoray Sheekh Maxamuud Ali Wacis ma aqoon marka sheekha beena loo geeyay kitaabka qadiyada uu xukumay wuxuu ka xukumay maqal cid qofkay ku dhacday maqal kay ka dhacday maqal wuxuu ku xukumay maqal taariikhdeeda ima soo gaarin ilaa hadda xilliga ay dhacday qadiyadaas dhacday xukuma hayo waxaana shaqo ku lahayn Ali Maxamuud radiyay inta waxaan uga baxay aday fiiri qadiyadaas
ninka ay ku dhacday iyo ninkay ka dhacday laba nin oo hal gaari oo tignika saaran ah markaasaa ninkii gaariga xabadu ku dhacday koomo galay gaari lagu qaadan lama arka beled halkan tacaada laga qaada beledweyne soo kooma gaari tignika lagu geeyay dhakhtarkii marka wuxuu yiri far saari maayo cidii damiino lahayd cidii saxiix lahayd la helo maahan war marka leeta gaari kale lama arka tignika la soo saaro waa 92 ogow waloogiya burburku sidoo ah ninku waa naf baxaya taara inta la soo fariisiyaa nabadoonkiisii aabihiisa waxayna waa saxiixanta lacagu ku qaatay qadiyadii sidaas aheeda waxa la yiri nin sheekh wuxuu yiri dhakhtarka lagu leeyahay meesha uu dalooliyo dhiiga uu ka soo saaray dhakhtarka lagu leeyahay maxaa uu daliila wuxuu yiri walaw awsa'a mawdihata ghayrihi fa thintani لأن فعل الإنسان لا ينبني على فعل غيره قف هدو قف نبر كل فته ماشي وداوعينا متكل xogaa ku sii daro sii balaariyo waa laba jaraxay noqonayaan marka saasay tahay nin kale nin ficilkii lama saari karay war waa laba jaaniye ninkan wuxuu badbaadinayay ninkii saxiixiisa intaas saxiixa inaan qalo haddana markuu loo saxiixay meeqa lacag ugu siinayda marka ninkan majaani uu ahaa maxaa lacag loogu doonay dhakhtarkii hal la soo weydiiyo qadiy kitaabka waxa ku qoran sheekhu qoray iyo waxa anigu abaa inaysan iswaafaqsanayn oo isku shaqaalahay waxa baranaysa ana waxaan ila dadkii gabal waxay yiraahdeen dhakhtarkii hal loo doonto markaas sheekhu radiyo wuxuu yiri qof yiri bal la kuma arko yiri qof yiri dhakhtarkii ay saaranta la kuma arko hadda waa runtiisa maana anu shaqo kule qadiyadiisa ma war kama hayo taydiyaan ogahay nin sheekha wuxuu yiri dhakhtarka lagu leeyahay mid kalena wuxuu yiri ma wuxuu had intee loo deyn way markaas aan diyada bixilayn diyadiisa kaamil bixilayn inuu la badbaadiyo ma ahayn isagoo nool linkii diyadiisa in la saaro ma ahayn haye hadru hal laga dhigo oo maxaad u daliishatay waligayba ma arag yiri dhakhtar wuxuu sameeyo oo dad la saarayo ma arag hadda ma arag daliil laga maydo kitaabkan cibaarada ku taala bal akhri waxaan nuxurkii murtida intaasaan kaga baxayaa kitaabka sheekha ma aanan radin qadiyadiisa ma ogi wuxuu xukumay ma ogi laba saxba kama hayo ee waa la nabayo ninkaas ku radiyay markaas sheekhuna dagaal iska qaatay waana shaqo ku lahayn hada wabillahi tawfiiq wallahu